gabagabaynta waxbarashada sanadeedka jaamacadda Green Hope iyo sidoo kale soo gabagabaynta aydna xilli waxbarasheedka jaamacadda Kasbondi oo labadoodaba ku kala astaysan 14 iyo 8 guud ahaantiin waan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa mansabka hadalkan ku joogtaan dhammaan walaalayaal sida aad la soconno Soomaaliya oo ah dalkeena aan annaga u dhalannay luqadiisa waxaad moodaa in ay xoogaa yar aanan dadku ku baraarugsanayn hadda dhowr jeer waxaan maqlaayay barashada luqadda Soomaaliga laakiin afku waa wada naqaanaa luqadda Soomaaliga waa wada naqaanaa laakiin waxa meesha ku jira waxa waaye barashada cilmiga afka Soomaaliga meesha waxa ku jira taas waaye markaan maadadaas bilaabaynay xoogaa yar culays badan aan soo fuulay laakiin waan ka gudubnay waxaase noogu daran dadku kuma baraarugsana luqadooda iyo habka ay u dhacayso iyo miisaankay leedahay iyo baaxaday leedahay dhumucdeeda ma ku baraarugsana laakiin waxaan rajaynaynaa in laakiin uu soo bixi doono jiil luqadda hadda saan la soconno alifba'deeda ma dhammaystirna waxbaa ka dhiman insha allah aydna waxaan ka rajaynayaa Soomaaliya dowladaheeda soo socda iyo kuwa hadda joogaba in ay ku soo kordhiyaan xuruufta alifba'da afka Soomaaliga waxyaabaha ka dhiman insha allah taasna waa rajaynaynaa midda kale waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo sanad waxbarasheedka cusub ee hadda fooda nagu soo hayo ardayda jaamacadda Green Hope ku soo biirayso waxaan leenahay ku soo dhawaada jaamacaddu waa jaamacadiinii waa jaamacaddii aad adig kala heedeen ma aha jaamacad kale ku soo dhawaada kuwa baxayna waxaan leeyahay jaamacadiinii kama bixinaha kama dheeraanaynaha laakiin waan idin sagootinay inaad waxbarashada qaybtan ma ahayna qayb kale aad ku sii kordhisataan insha allah waxaa kaloon leeyahay martida ka soo qayb gashay goobtan ee noo timid dhammaantiin waad mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina iyo sida xushmada iyo qadarinta leh eed noo qiimayseen oo aad uga soo qayb gasheen xafladan waan idinkaga mahad celinaynaa kun jeer wax badanaa hadal inta laga yiri inaan sii hadlo oo sii wada hadalka waa laga haboon yahay balse waxaan leeyahay ardadaha jaamacadaha ka baxayo fadlan gacnaha iskor saaraninaha waxa wax leedii baray ma aha in shaqo leedii siiyo waxa wax leedii baray waxa weeyaan inaad adinku ummadda aanan wax baran aad shaqo siisaan aqoon aad ku kordhisaan ku midowdaan waxbarashada qaybaha kala duwan ee aad wax baranaysaan aad ku midowdaan wax soo saartaan dalka wax ku soo kordhisaan afarta resource ee wadanku leeyahay oo ugu badan dalka waxaan aaminsanahay hal xaba kama faa'iidaysano heer waxaan joognaa baddu markay barwaaqo tahay baadiyaha aan ku baahannahay markuu baadiyaha barwaaqo yahayne badda aan ka baahannahay sababtoo labada meeloodba waan degnaa kuwaan markay barwaaqo yihiin kuwii baadiyaha abaare kuwii baadiyaha markay barwaaqo yihiin kuwii badda ag deganaayo xeebaha abaare nimcadaasna ilaahay na siiyey inaan iswaafajinno waa awoodi la'nahay insha allah ma raba inaan hadalka sii badiyo waxaan rabaa inaan halkan ku soo dhaweeyo xildhibaan wasiirka wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada oo aan nahay sami maxamed faarax nuux ku soo dhawow sami